xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa waxaa lagu eedeeyay inuu horinayo colaadda ka jirta degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. xildhibaan Nadiifa Aadan Isaaq oo ka soo jeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa Daahir Amiin Jeeso ku eedeysay inuu maleeshiyaad ku abaabulay degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxay xildhibaanku ugu baaqday inuu faraha kala baxo deegaanka Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana sheegtay in xildhibaankaasi uu ka soo jeedo deegaanka Hirshabeelle isla markaana uusan metelin beelaha halkaasi degaa. soo fariistay inaan baaq u diro maleeshiyaadka caadaystay inay deegaanada Wallaweyn inay ay ka sameeyaan shaqaaqooyin oo ay ka mid yihiin jidgooyo dhac kufsi maleeshooyinkaas caadaystay waxaan rabaa inaan maanta baaq uga diro halkan. waxaan leeyahay niman yahow ilaahi idin abuurtay ka cabsada Soomaali nin kastaba meel uu ilaahay ku beeray nin kastaba deegaan uu ka soo jeeda ninka hadda Wallaweyn yimid oo raba inuu dad ku dhaco oo raba inuu dad ku kufsado oo raba inuu shacabkaas korkiisa ku dagaalamo niyo waa qaldan tahay wax ku qabto ilaaha ku soo adeegan ku leeyahay maxaa yeelay dad masaakiina oo shacaba oo mar ahayn oo mar labaad ahayn ina isbaara dhigatid oo waliba ay dadku keensadaan oo mas'uuliyiin ah oo isku sheegay inayba waliba qaranka ay ka mid yihiin ay ku sii sheegaan inayba yihiin dad macawiisley oo la keensaday deegaanadaasi ay rabaan inay wax ka qabtaan nin aan hadaayadi maqlaaya hadalkiisa waxa ku jiray hadaf ayaan lahaa waxaan ku leeyahay xildhibaan hadafkaasi waa ku fashilantay maxaa yeelay hadafka adiga aad ka lahayd maleeshooyinka aageysa Wallaweyn waxaa la dhahaa tiisa daryeela tu kala ku daro adaa u baahan adaa deegaan laga soo doortay deegaankaaga oo u baahan Wallaweyn hadafka aad ka lahayd kuma hirgalayso mana kuna hirgali maysan ku leeyahay midda labaad asaan rabaa xildhibaankaas oo saaxiibkayga oo na rabin inaan magaciisa meeshan ka sheego oo bartay oo marar badan caadaystay inuu naga kalluumaysto adeer waxaan ku leeyahay saaxiib adiga deegaanada laga soo doortay deegaan doorashadaada waa taqaana meel baa laga soo doortay meesha laga soo doortayna waa taqaana waa Hirshabeelle deegaan doorashadan waxaa la dhahaa Koonfur Galbeed la dhahaa deegaanka markaas isku dayaysid inaa shir jaraa'idan u qabtay iyo maleeshiyaadka hadafan meesha u geeyay iyo aan leedahay waxaan ku leeyahay kalluumaysiga ka joojiyaan ku leeyahay deegaankaas sida adiga Hirshabeelle lagaaga soo doortay wuxuu leeyahay dad loo soo doorto xildhibaano adoo kale u leeyahay ku leeyahay markaan waxaan ku leeyahay kalluun hadaa u baahan tahay baddu ku jira laakiin bariga laga ma raadiyo anoona magacaagana qaadeynin oon ku xadgudubkaaga mar ahayn oo mar labaad ahayn iska caadaysatay inaa naga dhigatay wado ka yeeli mayna adeer saaxiib waa isnaqaana adigana meel baad ka timid anagana meel baan ka nimid kuguma xadgudbaayo xadgudubka naga jooji dad deegaan aad leedahay deegaankaaga ku ekow meesha dhiba ka taagan dhibkaas ka hadal laakiin dhibka Wallaweyn laguma degsan midda labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaheeni Cabdicasiis Maxamed Xasan Laftagareen mudane madaxweyne waa ku mahadsan tahay aadan kaaga mahad celinayna talaabada aad qaaday iyo ciidamada aad soo kala dhaxdhigtay dadkii rabay inay shacabkaas ay dariiq ka dhigtaan waa ku mahadsan tahay waxaan ku leeyahay waajibkaaga gudatay madaxweyne Laftagareen hore u socon ku leeyahay dawladda federaalka mudane madaxweynaheena Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allah yaxfidagan ku leenahay mudane madaxweyne deegaanada Shabeellaha Hoose dhibaatooyina ka jiro waa la socotaa waa ku jeednaa inaad dadaalaysid laakiin waxaan ku leenahay dadaalka inaad dadaal ku dartidan ka codsan lahayn siiba anaga dhinacan hadda oo meelahan maleeshiyaadka ay ku dagaalameen oo shabaabka lagula dagaalamay waxaaba nooga daran ninka shabaabka waaba dad shabaababa la leeyahay oo dagaal kugula jiro oo adii asaga dil ama deesma oo idinka dhaxeeyo way laakiin meeshan waxaaba jiro dad oo deegaan dad degan soo dul degay mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay daraadna waxa dadka oo la diray oo inta ka baxay kulli aniga ahaan ma ogeyn deegaanka aniga la iga soo doortay ma ogeyn
se dad mas'uuliyiin kale oo isla deegaankaas laga soo doortay waxa la ii sheegay inay wax ka ogeen laakiin ma hubo ma deegaanadaas mar alla markii ama loo baahdo in dad loo diro dadkii deegaanka ka dhashay waxaan jeclaan lahayn inaad nagu xurmaysid aad noo dirtid haddii uu yahay maleeshiyad ama dad isku haysto in la dhaxgalo hadduu yahay dadkii deegaankii inay wax u baahdaan annagaa joogno inaad nagala tashatid waa jeclaan lahayn